marka hore garan doona markaa dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. xiisaddeena insha allah iska bilaaban doonaa. ardayda kolley badankooda waa soo galeen, marka intaa wax badan sugi kari mayno, iska bilaabanna insha allah. wixii dambe soo codsadan waa ka aqbali doonaa. caawa waxay noo bilaabmi doonaa sidaan ku banansanayn lesson 1 ama cashirkeennii koowaad ayaynu insha allah bilaabi doonaa. marka intaan cashirka bilaabay waxaan doonaya khayr horreysiiyo assignment yar waxaa jira aan idiin diray. arday kastoo iisoo sawirayna magaciisuna ugu qornaa waxaan ku daray galaaska casharadu insha allah inoo soo geli doonaan. halkaas insha allah wixii dambe casharaduna inoo soo geli doonaan. zoom kasta ama cashir kastoo recording oo aynu samaynana halkaasaan insha allah idinku soo diri doonaa oo ardaygu runtii uu kala socon doonaa. traderska laba mid baan uga dan lahaa idinku lahaa soo dira. midi waxay ahayd taas ah ardayda intii u diyaarka ah inaan qolkaa geeyo oo qolkaa runtii aan ku daro. sababta waxa laga yaabaa arday habeenka koowaad iyo habeenka labaad zoomka soo xaadira inaysan kooraskaba ama fahansanayn ama allahuma mustacaan ay xiise uun ka tahay oo aysan reality ka ahayn. marka saan idinku kala saaro halkaasaan insha allah arday kasta ku daray. taasi waa qodobkaas. qodobka labaadna wuxuu ahaa bal arday kasta inaan ka dhex qiimeyn karo halka uu analysiskiisa ama structurekiisu taagan yahay. marka dhammaantii horta waa fiican tihiin. intay soo dirtay intay soo aan dirin ma sheegayo, intay soo dirtay waan wada fiiriyey maasha allah. isku weeyaan 3 dhibcood baan ku kala qiimeynayey oo outstanding iyo excellent iyo good. marka saddexa kii aan ku siiyeyba saddexduba way fiican yihiin, laakiin saddexduba way sii kala sarreeyaan. outstanding ka u sarreeya, excellent baa ku xiga, good ayaa runtii kusii xigta. marka adiga laftirkaaga halkaa structurekaaga aad ka arki karaysaa iyo qiimeyntaas aan ku siiyey halkaasaad ka arki karaysaa. inta haddaan kaga gudbo qaybta hordhaca ah, kolley wax kale hordhaci inooma yaalaan. weli ardayaad moodaa inay soo codsanayaan, marka waxaan ka yara eegayaa ardaydan gaari ka eegaya oo aan doonaya inaan gaar uga aqbalo. hadda arday badan baa runtii zoomka soo xaadirtay, laakiin galaaska ardayda aan ku daray ma gaadhaan ardayda hadda zoomka soo xaadirtay. macnaheedu waxay ka dhigan tahay arday badan oo weli hadda aan ii soo dirin traderkii aan ugu talagalay ama traderkii ama assignmentkii aan diray ayaa caawa zoomka ka midna ah ama zoomka caawa aan chance u siinay ka mid noqdeen. laakiin habeen dambe ka mid noqon karaysaan. habeenada dambe waxaa ka mid noqon doona toos uga mid noqon doona uun ardayda ruleska soo dhamaysa ama shuruucda soo dhamaysa, hadday tahay magacii la bedelayey iyo hadday tahay qaybta kale ee wixii aan idin diray in lasoo sameeyo. okay, marka cashirkeena insha allah iska bilaaban doonaa. okay, lesson 1 ama cashirkeena koowaad waxaynu u ballansanayn inaynu kaga hadalno market structure-ka ama market structure-ka ayaynu runtii kasoo bilaabaynay. kooraskeenuna runtii 3 point ayaan insha allah rajaynaya inaynu xoogga ugu badan insha allah saarno. 3 point maxay noqon doonaa? 3 point waxay noqon doonaan pointiga koowaad wuxuu noqon doonaa wax loo yaqaano directional bias-ka iyo jihada suuqa qof inuu go'aamin karayo ama uu runtii analyze garayn karayo. oo inaad suuqa buy iyo sell u gasho waxa ka horeysa walaal inaad suuqaaga garan karto suuqan horta ma down trend buu socdaa ma up trend buu socdaa. marka taa heshadee ayaad raadin karaysaa wixii ka dambeeyeyna. qodobka labaad ee kooraskeena insha allah aynu ku kafar garayn doonaa waa intriga meeshii aad traderka ka geli lahayd iyo timingka oo ah goortii aad geli lahayd traderkaas. qodobkaas intaana waxaa tole base u noqon doona trader psychology iyo risk management iyo waxyaabahaas runtii iyaguna meesha ku jiri doona. marka qodobadan kulli waa isku wada fahansantihiin waxa loo yaqaano structure-ka ama concept waa ka haysataan. marka ma dooni haddayna waqti ku lumino impulsive iyo correction iyo suuqan up trend baa la yidhahday kan down trend baa la yidhahday. waxaas maaha kooraska waxay u qabanay maaha. qof kasta suuqa ku jiraan wax uga baxsan yihiin. traderskiina ka arkayeyna waaba sababtaan idinku diraya assignment. marka hadda qodobada uma soconno, laakiin waxaynu u soconnaa rules inaynu samayno. qodob kasta oo aynu ka hadlaynana inaynu rule ku dhaafno, sababtoo ah hadhow tole waxa ku xidhi doona waxay noqon doonaan ruleka. haddii aan ku dhaho structure-ku sidana wuu noqdaa sidana wuu noqdaa, adna waad saxan tahay kana waa saxan yahay, waa qalad. rulku waxa weeyaan si aad u garanayso 1+1 inay 2 tahay waa inaad u garanaysaa waxaas marka ay sidaas samaystaan inay waxaasna saas ay noqonayso. way kaa soo horjeesan karaysaa, laakiin rulku inuu sidaa yahay waa inay ku aqoonsan tahay ama ay ku qoran tahay. 4 qodob ama 5 qodob insha allah xoogga saari doonaa oo caawa ka hadli doonaa. 1
oo waxa loo yaqaano break identification qodobka ugu horeeya. Break identification waa maxay? Break identification waxa weeyaan suuq horta marka uu meel jabinayo inuu meesha jabiyay iyo inuusan jabin maxaad ku garanaysaa? Chalk iyo BIOS waxay kala duwan yihiin impulsive and correction skill wax loo yaqaano uptrend iyo downtrend ruleskooda oo kooban iyo iswaafajinta ayaynu insha Allah ka hadli doonaa. Marka qodobka ugu horeeya ayaynu ka hadli doonaa oo break identification-ka. Okay, break identification waa maxay? Break identification waxa weeyaan suuqaaga hadda markuu tusaale ahaan uptrend u socdo meeshan waynu isla garanay inuu break of structure sameeyey uu halkan jabiyey laakiin halkan goormuu jabiyaa sababtoo ah mararka qaar waxaa dhici karta inuu dhowr kandal dhaafaan mararka qaarna waxaa dhici karta intuu afka uu kala baxo week haddana uu soo noqdo oo aad kala garan weydo miyuu jabiyey mise ma jabin taas weeyaan ama markuu down trend u socdoba maxaad ku garanaysaa suuqaasi inuu down trend u socdo ama hoos socdo uu meeshan jabinayo break of identification sameynayo okay ta ugu saxsan ama taynu isticmaalna ay runtii markaas isticmaali doonaa hadda lacagtan haddaan imaado runtii tusaale yaroo degdega okay example degdega haddaynu ka bixino wax kasta example insha Allah ku dhaafi doonaa okay arday baa weli soo codsanaysa markaa ka aqbali doona insha Allah okay break identification maxaynu uga jeednaa break identification waxaynu uga jeednaa suuqaagu marka uu runtii sameysanayo tusaale ahaan markuu tusaale ahaan sameysanayo waxa loo yaqaan hadda lacagtan oo kale haddaan soo qabto okay ardaydan runtii aan ka aqbalo okay lacagtan oo kale meeshan hadda way jabisay oo kaleerda suuqana already uptrend wuu dhaafay meeshan kale waa la soo jabiyay wax shaki kuma jiraan laakiin waxaan doonayaa meeshan kale haddaan suuqa hadda ka jaro markaas oo kale ka jaray suuqaagu hadda meeshan kale waa ka siman yahay korkan oo kale wixii hore dhan iska soo dhaaf korkan oo kale waa ka siman yahay korkan marka uu ka siman yahay qolyaha qaar waxay sameeyaan maxay burigiisan u saaranayaan qolyaha qaar waxay sameeyaan wiigaysa u saaranayaan wiigaasaysa u saaranayaan line yaro toosan marka line-kan hadda aniga soo igu toosan shift baan la qabtay waan jiiday kadibna shift baan la qabtay line-kaygan hadda goormaan odhanaya suuqaygani waa jabiyey goormaan odhanaya suuqaagani waa jabiyey goormaan odhanaya goorma ayaan u aqoonsanaya ardayga masalla ugu qorantay gacanta soo taagaya ha joojiyo runtii misleading ha joojiyo intuu casharka socdo inta uu halkaas hadda markaan san ku arko meesha saa u jabiyayo maxaan ku garanayaa tusaale ahaan waxaan ku garanayaa waa insha Allah break identification ahaan uu isticmaali doonaa marka suuqaagu uu jabiyo ama candle body meeshan ku xidhmo candle cusubna uu ku dul furmo ee uu ku dul xidhmo markaasaynu odhanaynaa meeshaas waa la jabiyey clearly haddii laakiin candle body kaliya jabiyo dadka qaar way isticmaalaan laakiin ma isticmaali doona sababtoo ah mararka qaarna way shaqaysaa mararka qaarna ma shaqayso oo waxaad adna tijaabin karayso waxaan anigu iska leeyahay ma okay hadda meeshan tusaale ahaan eeg hadda maxaa meesha ku dhacay one more time halkan dhalaan ka soo noqdo okay hadda tusaale ahaan horta kan hore inuu saarna waa qalad isagu because meel ma haysto waa inaad saarataa wiigaaga wiigaad saaranaysaa me suuqaagu marka uu sidan u socdo bayga hadda aniga candleskayga midab ku kala duwan yihiin candle kasta oo cadaan iyo selbu aniga yahay candle kasta oo madowna aniga baygu yahay marka candlekii bayga ahaa candleska madow bayga ah wiigiisi u dambeeyaan saaranaya ama rejection-kiisi u dambeeyay line-kan toosinaya waa in candle igu dul xidhma igu dul furma ani nooc doona ha noqdo bay ha noqdo sel ha noqdo hadda suuqaas ma odhan kara meesha wuu jabiyey mar hadduusan jabinna halkaa ma siin kara higher high halkana higher luma siin karo waa qalad waa in meesha la jabiyaa goormaan garanaya in la jabiyey aan ku daro hadda weli waa laga soo noqdo hadda weli lama jabin meeshaas hadda maxaa jabiyey rejection baa jabiyey ama candle body baa jabiyey still ma odhan karo ilaa iyo goorma ilaa iyo aan garan karo in uu suuqayga ku dul furmo ku dul xumay hadda wuu ku dul furmay mar hadduu candlekaagu saa ugu dul furmo rejection line-kaagan hadduu ku dul furmo suuqaagaasi meesha waa jabiyey ama identification-kaagaasi break identification-kaagaasi waa dhacay wixii ka dambeeya waxaad isticmaali doontaa inaad suuqaaga ku isticmaasho meesha kale aad uga gudbayso tusaale ahaan hadda wuu jabiyey mar kale waxaan leeyahay haygiisii kale waa kan haygaa in la jabiyey maxaan ku garanayaa waxaan ku garanaya waa in identification saxi ka dhaco waa in identification ka dhaco hadda already hoos buu soo noqday yes hadda waa yimi hadda marka uu yimi maxaa ku dhacay candle body baa jabiyey candlekaa weyni maalinka uu jabiyey weli suuqaa lama jabin wuu soo noqon karayaa laakiin maalinku candlekaa labaad ku xigaa samaysmay ee bannaanka isa sii dhigay suuqaagaasi wuu sameeyey break identification-kii aad ka doonaysay simply intaad ka hadlaysa ama intay break identification ka hadashaa waa intaasa inta lagaa doonaya inaad fahamsan tahay break identification marka laga hadlayo waa intaasa okay tusaalayaasheenna insha Allah si fiican baynu ku dhex qaadan doonaa qodobka isna labeeya ee aan doonaya inaan ka hadalna waxa weeyaan waa maxay farqiga u dhaxeeya
chock iyo boss waa change of character iyo break of structure baynu soo kaabsanay labadaba waa maxay farqiga u dhaxeeya farqiga u dhaxeeya walaal waxa weeyaan suuqaagu chock haddaad maqasho waa suuq trendy oo hadda kala wareegay ama se soo kala wareegay halka break of structure ay ka tahay conceptkeeda koobani structure-kaaga suuqu jihadii uu u socday ayuu u sii socdaa ama suuqaasi wuxuu jebiyey meel structure uu jebinaya macnaheedu weeyaan laakiin suuqaasi wuu kala wareegay maaha tusaale suuq ayaa wuxuu u soconaya maxay uptrend oo sidoo kale runtii uptrend ugu soconaya higher high higher low higher high higher low higher high suuqaas hadda clearly waxaanu arkaynaa inuu uptrend yahay ama uu ku soconayo jihada bayga ah suuqaagaasi hadduu soo jebiyo higher lowgiis u dambeeyey oo meeshaasa oo strong level ahayd ama bay laga sugayo hadduu soo jebiyo oo suuqaagaasi uu meeshaas soo cuno waxaa totally dhacay waxa loo yaqaano change of character bay iyo sel kuu doona ha noqdo meesha waxa ka dhacay change of character mar hadduu change of character dhacayna suuqa waxay u badan tahay inuu soo kala wareego walow hadda ruleski lagu soo kala wareegayay aysan weli dhammaystirnayn laakiin change of characterku waa in suuq jihadaa u jeeday hadda la jebiyey oo jiha cusub loo sameeyo maxaa kale noqon karta waxaa noqon karta suuqaagii oo hadda sidoo kale sameeyey ayaa change of character soo sameeyey down trend buu isku soo rogay suuqaagii down trend qurux badan saa ugu socda ayaa maxay sameeyey break of structure sorry change of character meesha ka soo sameeyey marka meeshaas maxay noqonaysaa waa chock halkaas ayaa u adeegsan doonaa chock any time frame 5 minute 1 hour 15 minute daily timeka doonta chock waa maxay waa suuq markaasi soo kala wareegay muxuu samayn karaa hal mid iyo laba mid marka wixii dambe structure bay noqon doonaa laakiin ta koowaad waxay noqon doontaa waa chockkaasay noqon doontaa POS kuna muxuu noqonayaa POS ku isagu waxa uu yahay waa meelahan la jebinayo waa structure kan marka hore la jebinayo suuqan jihada u jeeda waa structure-radan uu jebinayo kanoo kale muxuu noqonayaa waa POS break of structure break of structure break of structure break of structure baynu ka doonay laakiin lama samayne already suuq waa kala noqday ama se muxuu sameeyey ama dhankii kale runtii total u jeestiba aynu iyagoo tusaaleyaalana iyagana runtii aragno haddaynu hadda lacagtiinana kala nimaadno iyo islayada ku dabaqno maxaynu meeshan ka arkaynaa waxaynu meeshan ka arkaynaa suuqeenani muxuu ku soo socday suuqeenani down trend buu ku soo socday suuqeenani down trend buu ku soo socday oo halkan muxuu ka samaysanayay halkan wuxuu ka samaysanayay like lower low ama down trend buu ahaa then okay kan agan tigta saarto suuqan muxuu ku soconayay like saas u soconayay haddana wuu noqday wuu soo dhacay wuu noqday wuu soo dhacay dee waxay ahayd intuu meelaha istaago inuu sii socdo ma samayn marka maadaama uusan samayn inta hore muxuu soo sameynayay inta hore wuxuu soo sameynayay waxa loo yaqaano break of structure oo sida halkan kaaga muuqata mar kasta wuxuu suuqaagu jebinayay structure buu soo jebinayay mar kasta wuxuu suuqaagu soo jebinayay maxay structure ayuu soo jebinayay oo meeshaas waxay ku noqonaysaa break of structure another break of structure kale oo waa kana break of structure halkan waxaan ka doonaa break of structure inuu sameeyo ma sameyne wuxuu cunay tii sare kuwa hore laakiin wuu ixtiraamayay muxuu sameeyey mar hadduu structure-kaagii koobaad hadda jebiyey oo uu jebiyey waxay kuu noqonaysaa meeshaasi chock ayay kuu noqonaysaa marka chockga timeka uu kuu noqonayo dee kolba waa timekii aad taagantahay hadda 4 hour baan taaganahay waa 4 hour chock haddaad 15 minute taagan tahayna waa 15 minute chock marka iska ilaali inaad afkana si fiican u saarto halkaas kale iska dhigan oo iska odhan chock baa dhacay ama halkaas oo kale iska dhigan waa inaad rejection-ka u dambeeya ee bayga a saarata markuu suuqu bay ku soo noqdo rejection-ka baygiisa halkan maxaan saaranayaa rejection-ka selka ah ayaan saaranaya waa inaad ka saxdaa meesha uu samaynayo identification-kii haddaan kudhaa ii xaqiiji maxaad iigu xaqiijin karaysaa waxaad iigu xaqiijinaysaa walaal meeshan rejection-ka maadaamaad saaratay waa inuu kanal ku dul furmaan ku dul xunaabaynu waxaanu dhan way jebiyeenun ama way ku dul furmeenuna way ku dul xidhmeenuna kuma dul furmin kan dhaliska wixii ka dambeeyay ku dul furmay marka intaas waxay ka dhigan tahay waa hal lug ama waa hal impulsive hadda maadaama la jebi waa impulsive waa bullback wixii ka dambe maxaa bilaabmaya dee waxa bilaabmaya trendiga caadiga ahaa bilaabmaya bal hadda marka aynu eegno wixii dambe maxay noqonayaan maadaama kaas joog yahay wixii dambe waxay noqonayaan wixii dambe waxay noqonayaan BOS ama break of structure kana saaro marka hadda saa u jiido meesha kan dhalmii ku dul furo mise kuma dul xidhmin hadda anigu ma xaqiijin karo wata aan ku qoro BOS aan ku qoraa meeshaas ma xaqiijin karo laakiin waxaan xaqiijin karaa marka aan soo dhaweeyo shakiga iga saar ama midnimada iga saar markaan idhaahdo kan saa ugu toosiyo because hadda maxaan saaray hadda sel buu saaray kan dalka cad aniga sel buu hadda waa qalad waa inaan ka bayga saartay markii hore ku sharaxay waa inuu kan dalka bayga ee wiiga dheer la saaranaa hadda maxaad arkaysaa waa la jebiyey yes waa ku dul furmeen ku dul xidhmeen mar hadday ku dul furmeen ku dul xidhmaan maxaan leeyahay waa break of structure okay saan soo jeed markaas meeshaas waa maxay waa break of structure okay another break of structure kale waa kana
okay kan iga saar waxaad leedahay another break of structure kale mee waa kana isaga si kaleera weliba looga dulbaxay marka break of structure kaagu saasuu runtii u dhici doonaa maalinka isaga laga soo horjeestay la kala jebiye ama dhanka kale loo jebiyena waxa uu noqon doonaa maxay waxa uu noqon doonaa change of character ama shock ayuu noqon doonaa hadda tusaale ahaan suuqan korka u socda dad soo fiiriso maxaa dhacay intan oo dhan break of structure buu soo samaysanayay laakiin maalinka kiisii u dambeeyey la soo cuno oo kaa ahaa ma break of structure baa maya wuxuu noqonayaa isagu shock ayuu noqonayaa ama waa change of character wixii ka dambeeyana waxay noqonayaan break of structure ayay noqonayaan labada qodobna inay kala cad yihiin baan filaya waxaana runtii hal midin bay isku yihiin marka uptrend downtrend la isticmaalayo waxay noqon doonaan wax hal mar la isla isticmaalo ayay noqon doonaan marka hadhow toole iyagoo si guud insha Allah isticmaali doonaa qodobka saddexaad aan u gudbi doonaa waxa weeyaan waxa loo yaqaano impulsive and correction scale maxaynu uga jeednaa iyagana impulsive and correction scale waxaynu uga jeednaa wax kasta horta waxay leeyihiin cabir ay dhaqaaqaan inta badan oo runtii ay ka siman yihiin suuqaagu haddii markale tusaalaheenu ku noqono markuu tusaalaan sel u socdo kan waxaynu ku sheegnay ama u naqaano ama aynu ku soo barannay si caadiga inuu yahay maxay impulsive waa down trend kana inuu pullback yahay inuu correction yahay inuu nasasho yahay waxaas oo dhan waa kelimado oo keywords jira laakiin su'aashu waxay tahay impulsive kaagan intee leeg buu socon karaa correction kaagan intee leeg buu socon karaa tusaale ahaan hadda kan waa impulsive soo maaha correction buu baahan correction kiisu ama sidaa soo noqdo ama sidoo kale ha soo noqdo ay nooc doona ha soo noqdo horta ilaa halkee buu chance haystaa inuu socdo wuxuu chance haystaa correction kaaga soo noqonaya ama nasashadaadani waxay chance haysataa ilaa iyo last lower high u dambeeyay oo bartaasa inay soo noqoto chance bay haysataa marka adigu ha ku xukumin suuqa hadduu mar halkaa soo gaadho ha odhan ow suuqayga momentum buu ku soo dhaqaaqayo halkan saruu jebinaya maya sidoo kale ha ku xukumin suuqaagii inaad tiraahdo intan buu soo dhaqaaqo 50% buu soo gaadho waa must inuu daato sida dadka Fibonacci isticmaala ay yiraahdaa 0.5 ka noqonaya iyo wax la mid ah sorry marka ha ku xukumin laakiin suuqaagu ogow inuu chance haysto intan dhaxoo dhan inuu ku rafan karo inuu ku galgalan karo kaasi waa qodobka kale waxa weeyaan impulsive kan intee leeg buu sina chance haysta impulsive kaagu isaguna wuxuu chance haystaa inta uu jebinayo levelkii ka horreeyay oo halkana inta uu break of structure samaynayo waxa uu haystaa chance uu ku galgalan karo tusaale hadda waxaynu nidhi tusaale ahaan pullback baa soo noqotay meeshaasaa bay timiba impulsive kaagan soo dhici doona buy selkii wuxuu chance haystaa ilaa iyo intuu halkaa jebinayo structure ahaan waa sidaas sax ilaa iyo halkaa inta uu jebinayo mar hadduu halkaa jebiyo suuqa waxa ay ka dhigan tahay structure ahaan waajibaadkii laga doonayay inuu fuliyo waajibaad ahaan structure-kii laga doonayay inuu fuliyay ayay ka dhigan tahay concept kale isaguna jira oo ah institutions inta badan isticmaalaan oo ah impulsive-ka soo dhacaa waxa uu gaadhaa wax loo yaqaano 1.27 oo ah meeshan meel in yar ka yar hooseysa oo Fibonacci from here to here inta la saarto 1.27 kaas uu gaadhaa labadaas inta badan impulsive-kuna uu samaystaa ama uu samaysmo labadaba aynu eegno okay haddaynu ku soo noqono trade view-geennii oo isla lacagteena hadda aynu tusaale ku bixinaynay aynu nimaadno waxaan ku jirana aynu remove niraadno aynu fiirsano hadda waxaynu leenahay tusaale ahaan waa kana kani waa maxay kani waa impulsive keenii hadda meesha haddaad u fiirsato okay isla iyadun dib aynu u fiixno meeshana kale aynu ka goosanno hadda lacagtan waxay meeshan ahayd maxay shock bay ka samaysatay ama change of character ayay ka samaysatay oo hadda haddaan saa u jiido still okay kanarka caddaanka bay sameeyay marka meeshan waxaan u aqoonsanayaa maxay change of character ayaan u aqoonsan doonaa 4 hour change of character ayaan u aqoonsan doonaa so impulsive uptrend kani weeyaan waxaan u aqoonsanayaa inuu yahay impulsive waxaan u baahanahay bullbacktiisa waxaynu sheegnay ilaa iyo inta ay chance haysato marka hadhow halkay ka noqon doontaa ma halkan bay ka noqonaysaa ma meeshaas ka noqonaysaa ma dhexday ka noqonaysaa waa another option kale in intii kaga hadli doono laakiin structure ahaan inta dhaxoo dhan iyada ayaa chance haysata inay markaas ku galgalataa marka aynu fiirno bal waxa ay samaysato okay horti bullback waa bilaabmay yes bullback waa kan bilaabmay maadaama bullback bilaabmay waa inay soo noqotaa marka halkay ka soo noqon doontaa iyada intrigan insha Allah kaga hadli doonaa tusaale ahaan hadda meeshaas ka soo noqotay sayno muuqata suunkaasi ka soo noqotay
impulsive kan dambe bilaabmi doona waxa khasaba inuu uu jabiyo alkan structure ahaan laga doonaya waa intaas trade-ka intaad ka faa'iideysanaysaana waa inta uu labada structure u dhaxay waa inta uu structure-kaaga ay ka jabinayo inta u dhaxaysa weeyaan inta TB-gaaga ama trade-kaaga ku xisaabtamayo structure ahaan waa sidaas marka inuu jabiyo ayagna already hadda waa ka jabiyo mar hadduu rejection-kiisaas ka baxay already target-kii uu gaaray qodobka kale la isticmaala waxa weeyaan in la soo qabsado Fibonacci-ha oo hadda meesha waxa ku jira maxay fib retracement-gaas meesha kugu jira haddaan meeshan bannaan kuu dhigo waa default ah waa sidii uu samaysan hadda waxba kama bedelin isaga ayaad ku dhufanaysaa kadibna isaga wax laga beddelaa waxaad u baahan tahay waxaan dhawaad ka saari doontaa waxaan hadda ku samaysan oo dhan background-kiisa xitaa iska xidh waxaad ka xidhaysaa soo kale 0.618 kan waad iska xidhaysaa waxaad xidhaysaa tusaale ahaan 4 kan waad xidhaysaa 2.618 kan laftirkiisa waa la isticmaalaa qaar waa isticmaalaan laakiin waad xidhaysaa isagana hadda anigu just kan u socdo kaliya doonaynaa waxaan dhawaad xidhaysaa 0.78 ka iska xidh 0.5 ka laftirkiisa iska xidh waxaad xidhaysaa 2 3 ka ay ku qoran tahay iska xidh 1.618 kan isaga laftirkiisa iska xidh ama isaga iska diiso just 1.27 kaasna hadda u baahanahay 1.27 bottonka ay ku qoran tahay iyo labadan oo iyagu labada aan saaranay maca aan xitaan xidho 1.618 ka mar kale isagana insha Allah sharxi doono maxaan la soo haray waa 0-ga 1-ka iyo 1.27 ka intaas la soo haray kadibna hadda wax kale ka bedelaysa ama midabada iska bedelaysa okay weeyaan kadibna save day okay hadda waa kan fibkay maadaama hadda fibkay ka yahay waxa aad saaran doontaa fibkaaga suuqaagu marka uu bayga u soconayo uu saa yahay waxa aad saaranaysaa waxa weeyaan waa correction kan because correction kan baa cabiraysa impulsive ka bilaabmi doona ku gaari doona weeyaan muhiimadu correction ka from halkiisa u sareysa ka soo bilaabaysa halkiisa u hooseysaad geenaysa maxaan ka keenay waa topka ayaan ka soo bilaabay halka u hooseysan keenay ee correction ku dhamaaday 1.27 ka hadii la soo gaaro trade-ka TB-giisa wad haysataa ka bax weeyaan suuqaas uu noqonayaa markuu down trend ka soconaya pullback tuu saaro ka soo horjeedkeeda walayna fiirno hadda soo sameeyay hadda kanaynu saarano fibkii baan soo qabsanay from here to here baynu saaranay halka u hooseysaynu geynaa maxaynu calaamadinay inagu 1.27 ka meel maynu saarin inagu 1 kan oo halka u sareysa aynu ka soo bilownay iyo halkii u sareysa oo 0 aynu ku beegno kaliya calaamadinay maxaynu doonaynaa trade-kaygu TB-giisa waa maxay trade-kaaga TB-giisa waxa leeyahay waa 1.27 ka marka uu gaaro aynu fiirino okay hadda uu soo nastay okay dib ayuu soo nastay ama uu soo noqday laakiin maxaa wali maqan wali 1.27 kii lama soo gaarin intuusan 1.27 kii soo gaarin muxuu samaystay another chance kale ayuu meeshan ka abuuray because high-gaagi maadaama uu jabiyay another chance kale ayaa isna barta ka abuurmay isagana waa cabiri doonaa laakiin kan horta aynu fiirino marka uu gaaro yes isaga marka saa loo gaaro barta trade-kaaga TB-giisa wad ka baxaysa waa must waa la imanaya 1.27 ka waa khasab okay kiisan kale me kaas waa maxay waa kii hore oo isaga hadda waa la yimi mar haddii isaga la yimi waxba meesha ma yaalaan waxba ma yaalaan liquidity meesha yaala waa la qaatay taan ka saaro kan yara isna ku jiraan cabiro kan yara dambe isna bartan ku jira from here to here bodigana waad saaran kartaa weekana waad saaran kartaa marka dad marka hore weeka ka soo bilowday weekaad saaraysaa markaaga hore dad saa weeka uga soo bilowday weekaad saaraysaa dad marka hore bodi ka soo bilowdayna bodi to bodi baad saaraysaa labada dhanba waad ku xisaabtantaa hadda maxaad arkaysaa haddana waa ka 1.27 ka kale qofkii bartan ka soo raacayna TB-giisu waa kana halka ma dhaafin karo hadda trade-ka sii haynaysiya waxaas waa another option kale laakiin structure ahaan suu shaqeynaya waa saas oo mar haddii 1.27 kii la taabto trade-kaagi reaction buu sameynaya ama falcelin buu sameynaya hadda muxuu sameeyay meeshii falcelin baa laga sameeyay ugu yaraan suuqi waa lagu haynaya ama waa laga soo celinaya waxaad arkaysaa okay meeshii waa laga soo noqnoqonaya ama meeshii lama dhaafayo simply soo shaqeynaya waa saas mar kale aan sawirno okay sorry oo inaga hortagay kan iska saaro maxaan sawirayaa waxaan sawirayaa hadana kan ayaan sawirayaa goos kan baa dhexda ku jira this one waa kana wiigiisa saartay laakiin kalena wiigeeda saar isna waa kana isagana waa TB-giisu waa kana 1.27 kiisu waa kaas meesha trade-kaagu marka uu gaaro uu TB-gaaga wadaasta waxan kale uu suuqu sii carro dhan waa another option kale iyo faa'iido kale iyo wax kale u baahan cilmi kale lagu sii haysanayo laakiin structure-ku sida uu u shaqeynaya waa sidaas simply intaas uu gaaraya correction kana waxaynu sheegnay inta uu dhaxeeyo from high to high inta uu dhaxeeyo inuu isagu leeyahay inuu ku dhex rafto goorta laga istaajinayo inaad u baahan tahay inaad barato si lagu istaajinayo okay qodobkana waan dhaafi doonaa wixii su'aalaha insha Allah xag dambe insha Allah ka dhigan doonaa oo waa eegi doonaa insha Allah laakiin marka hore aynu isla wada eegno qodobka ku xigan doonayay isla eegna waxa weeyaan waa upturn iyo downturn
uptrend iyo downtrend simply marka laga hadlayo waa suuq kor u socda iyo suuq hoos u socda oo uma baahnin wax kale oo confirmation inuu sii siino laakiin su'aashu waxay tahay si uusan meeshii muran u noqon oo aan anagu wada lacagta anigu uptrend baan u arkaa adna adii odhan buy baan u arkaa anigu waxaan u arkaa uptrend qofka kugu xigaana uu downtrend baan u arkaa kani uptrend baan u arkaa kani downtrend baan u arkaa waxaasoo dhan murankaasoo dhan si u baxo uptrend horti mise rule buu leeyahay downtrend mise rule buu leeyahay just because waxa fiican wax kastood baranaysa waxa la weydiiyaa qofka waxaan horti mise rule baan ka eegaa 2 rule 5 rule 10 rule 50 rule wuxuu doonaa ku siiyo laakiin rules kuu qoran waa inay jiraan uptrend haddaad doonayso suuqaaga uptrendka inaad ogaato only 2 rule baa laga eegaa any time frame 5 minute ilaa iyo month ama day ama 1 hour waxaad inta joog downtrend 2 rule baa laga eegaa uptrendkaaga 2 rule baa laga eegaa dhammaantood baa hadda isla arki doonaa insha allah okay aynu gudubno okay uptrendkeena maxaynu ka doonaynaa uptrendkeena waxaynu ka doonaynaa 2 rule labada rule ee uptrend ka doonaynaa waxa weeyaan kow inuu sameysanayo wax loo yaqaano higher high iyo higher low oo macnaheedu tahay inuu suuqaagu higher high higher low higher high higher low higher high uu sameysanayo oo macna structure-ka uu sidan isku jajabinayo waxa laga yaabaa sidan qurux badan inaan isku jabinayno dee halkan la jabinayaan baa identification-ka ay sameynayaan ama wax la mid ama 1.27 uu gaarayba waa kow waa sharciga waxba kama bedeli kartid waxaynu nagu sameysana maaha waa wax sidaa ku sameysan markaan maxay tahay higher high HH higher low markaan weeyaan ana maxay leenahay higher low markaan waa maxay waa higher high markaan waa maxay waa higher low halkan waa maxay waa higher high halkan waa maxay waa higher low simply waa kaas waa rule qodobka labaad ee laga doonayo suuqaaga haddii intaasoo kaliya sameysanayo ma noqonayo uptrend dhammaystiran sababtoo ah waxaad dhici karaysa laftigiisa marka la fiiriyo in suuqaagan impulsive ka horreeyay oo waxaan dhan end of the deal gura correction buu ahaa kana waa impulsive-kii isaas kale oo lagu qancin karaya haddii rule-ka labaad aanad haysan ama rule-ka labaad uu ka maqan yahay waxba kama jiraan rule-ka labaadna wuxuu noqonayaa walaal rule-ka labaadna wuxuu noqonayaa inuu suuqaagu sameysanayo choke calera change of character calera inuu suuqaagu soo sameystay oo suuqaagan macna inuu ka horreeyay suuq down trainer oo meeshan maray inuu suuqaagan ka horreeyay suuq down trainer meeshu doonaba ka yimaadeen suuq down trainer lower low lower high lower low lower high lower low lower sidoo kale sameysanay inuu ka horreeyay marka choogaaga suuqaagaas mar hadduu choog barta ka soo sameystay oo hal choog soo sameystay higher high higher low uu sameysanayo uptrendka cidnaba ku kula murumayso wax murani kama taagna laakiin muranku muxuu ka iman doonaa muranku wuxuu ka iman doonaa structure isku dhex jira marka aad tiraahdo waa uptrend su'aal ahaan suuq sano kala sameysanay oo down trainer ayaa meeshan kala soo sameystay kadib waxa iska tahay uptrend meeshan baad iska xisaabsatay waxba kama jiraan suuqaagu halkan baa u dambaysa waxaan dhan neef jiray waxay noqon doonaa pullback bay noqon doonaa ama impulsive ka soo bilaabi doonaa down trendka markaynu ka hadlaynana maxay leeyahay down trendkuna waa cagsigiisa down trendkuna waa inuu sameysanayo lower low iyo lower high iyo choke calera waa inuu suuqaagu soo soconayo oo lower low iyo lower high calera uu sameysanayo sidaas si la mid ah markiisa hore waa inuu change of character soo sameystay oo suuqan ugu yaraan hal ama laba meelood uu soo saaray su'aal ahaan waa inuu choke soo sameystay wixii ka dambeeyana break identification ama BOS uu sameysanayo simply inta haddaad hesho suuqaagu wuxuu kuu noqonayaa trendy buu kuu noqonayaa ama say structure-kiisaas waa kuu sax okay qodobkaana isagoo tusaale ah aynu isla fiirino halkan baynu iman doonaa lacagtan hadda aynu joogno iyada laftarkeeda ku fiirino waxaan ku jira aan ka saaro waxaynu leenahay bal meelahan aynu ka jarno dib aynu noqono hadda kale waa maxay hadda kale already waa down trend muxuu ku sameysanayaa lower high hadda halkan isha waan ka arkayaa inuu suuqani down trend u soconayo ama lower high lower low uu sameysanayo laakiin hadda ku dhax xaqiiji suuqan intan qoro iguma xaqiijin kartid ee waa in suuqaagu aad ka soo bilowdaa lefty oo meel uu choke ku soo sameeyay hadda aad arki kartid hadda choke-gaagii koowaad ama suuqan choke-giisii koowaad mee waa kana because suuqani marka hore uptrend buu ahaa suuq kastaan inta uu ka sameysmo waa labada rule suuqani muxuu uptrend buu ahaa oo uptrend ayuu ku soconayay halkan muxuu ka sameystay markaas halkaa wuxuu ka sameystay halkaa dad saa u soo jiido oo shift la qabto line-kaas meesha wuxuu ka soo sameystay choke buu ka soo sameystay markaas waxay noqonaysaa 4 hour choke 4 hour choke-gaygaasi maalinka uu soo dhacay wixii ka dambeeyay suuqaygaasi wala down trend buu ahaa oo impulsive-kiisii koowaad waa kana ama lower low buu sameystay markaas waxay noqonaysaa waa 4 hour lower low ayay runtii noqonaysaa halka calaamadiyo 4 hour lower low aan ku qorto aan ku qoranayaa meesha maxay 4 hour lower low okay
marka maxaan ku qoranayaa 4 hour lower low. Okay, 4 hour lower low kana muxuu noqonayaa lower high-giisi. goormuu sharciga lower high-nimada helayaa? wuxuu sharciga lower high-nimada helayaa marka dhaqaaqa halkan ka soo bilowda uu jabiyo kan inta ka horeysa ma helayo. hadda halkaasi ma heli karin lower high, ma heli karin, mana heli karo soo qalad, sababtoo ah dhaqaaqu original move-ku meeshaas ka soo bilaabmay. original move-ku meeshaas ayuu ka soo bilaabmay, marka halkaas ka soo bilaabmaya. waxaan leeyahay waa kaasa. mar kale waxaan leeyahay lower low, then lower high baan doonayaan sawirto. ka war lower high-gaaga haddaad igu taado halkaas lower high waa qalad. lower high-gaaga si qalad buu noqonaya. sababtu qaladku yahay waxay tahay dee meeshadaasi lower high sax maaha. lower high waxa kuu noqonaysa meesha dhaqaaqa structure-kaaga jibiyo oo ka soo bilaabmay. tusaale halkan oo kale waa maxay? waa lower high clear, because hadhow toona change of character ahaan baad ku xisaabtamaysaa. mar kale muxuu samaystay lower low oo waa kana. maxaa uu samaystay lower high-giisana lower high-giisana waa kana. u fiirso sida loo ixtiraamayo. afkaa loo saaray, then lower high-giisa kale waa kana, ama lower low-giisa waa kaasa. lower high-giisa lower high-giisa waa kaasa. ka waran dad bartaa dhigato qalad, sababtoo ah original move meesha kama bilaabane dhaqaaqaagu meeshaas ka soo bilaabmay simply. okay, kaana ay saara markaas halkiisa u daa. muxuu samaystay lower low kan sauji waxaan dhexda ku jiro dhami waa internal structure, is not the real structure. halkaa maalinka uu jabiyey suuqaagu wuxuu samaysta u fiirso. halkaa maalinka uu jabiyey wixii ka dambeeya waxa uu suuqaagu samaysto u fiirso. muxuu samaystay? halkaasuu jabiyey, waxaa bilaabmay uptrend yar oo kaas markii la jabiyey kan ayaa ugu horreeyey. kaas ayaa ugu horreeya, ama halkaas waxay noqon doontaa higher low ay noqon doontaa. 4 hour higher low bay noqonaysaa. higher high-giisi halkaasay ahaa, ama meeshaasuu ahaa. chance yar baa ku jiray. chance-ka wixii ka dambeeyey suuq mar kale muxuu isku soo rogay down trend-kiisu haddana dib u bilowday. muxuu dib u bilowday? because halkan isla markiiba haddana waxa laga soo sameeyey change of character kale. kaa dhexda marka laga yimaado maxaa mar kale la soo sameeyey? change of character ayaa la soo sameeyey. mar haddii change of character laga soo sameeyey maxaa bilaabmay? down trend-ka baa bilaabmay oo waa kan haddana. intii un baad dhacaysa maanta oo dhan suuqu inta uu down trend iyo up trend samaysanaya waa inta. hadda maxaa dhacay? chock waa kan. hadda markuu chock u dhacay waa kan mar kale up trend haddana ku soconaya. marka labada sharciye keliya ee uu suuqu u dhaxayn doona waa labadaas. sharci kale oo jira ma jiro. okay, intaasina waa marka laga hadlayo trendiga suuqa iyo structure-kiisa sidoo up trend iyo down trend ku samaysmaa. intaynan markaa bartaa dhaafin oo aynaan iswaafajintii waxa u gelin, waxaan doonayaa hal sharci inaynu ku darno oo ah suuqeenna. waxaynu sheegnay break identification-ka marka uu suuqu samaysanayo halkan marka uu jabiyo, halkan hadduu jabiyo waxaynu sheegnay inuu meesha jabiyo soo maaha. bullback-teennana waxaynu sheegnay inta u dhaxayso oo dhan inay chance haysato, laakiin walaal mar kastaba saa kugu qurux badnaan mayso, kugu dheeraan mayso. mararka qaar waxaa dhici doonta inta in yar soo noqoto inuu suuqaagu iska dhaqaaqo, halkan sarena uu ku samaysto. marka waxaa la idhahdaa waxaa jira sharci ah dhey marka aad joogto haddii bullback-taadu ay 100 bib iyo wax ka badan tahay bullback oo isticmaali karaysa. 4 hour marka aad joogto haddii bullback-taa soo noqotay 60 bib ay ka badan tahay waad u isticmaali karaysaa bullback-nimo. 15 minute marka aad joogto 13 bib iyo wixii ka badani way kugu filan yihiin inaad u isticmaasho asa structure ahaan. tusaale hadda dhey aan tago, dhey hadda markaan sidaa u tago suuqayga waxaan odhan karaa dhey markaan sidaa u tago simply waxaan odhan karaa dhey meeshan soo noqotay ama waxa meeshan hadda ka dhacay ama bullback-tan because kale waa impulsive-kana waa correction soo maaha. bullback-tan soo noqotay aan saa u cabiraya bodiga inta bodiga markaan sidaa u cabiraan saa u saaro muuskayga karsarka saaro waa 427 bib. 427 bib way ugu filan tahay bullback. kan dhaxa cabir waa imise? waa 2 kandal oo kaliya, waa 300 oo ku dhawaaba bib. waa bullback. kani waa maxay? waa bullback. kan yar dhexda ku jira oo fiirso waa imise? waa 198 bib. waa bullback in daily marka aad joogto. haddiiba ay meeshaasi kuu gaadho 100 wax ka badan dheyga bullback ahaan bay kuu noqonaysaa. 4 hour-ka marka aad timaadana waxay kuu noqonaysaa oo hadhow toole marka meesha haddii shaki kaa galo kale ay kaa caawinaysaa. meesha haddii shaki kaa galo kale ay kaa caawinaysaa. hadda meeshan kale dad fiirsato maxaa ah? meeshan kale waa bullback kale 4 hour cidna kugu murmayso ka waran. laakiin meeshan haddii qofku dhaado meeshan baa bullback ah, because as structure ahaan dee bullback-nimo ma noqon kareen, because wuu suuq uu soo noqdo qofku wuu arki karaya. qof waliba in badan soo qurux jiray, laakiin inaysan 4 hour structure ahaan waxaad ku garanaysaa waad cabiraysaa. waa 26 bib ma noqoto 4 hour structure bullback ma noqoto. 4 hour structure bullback ma noqoto. marka sidaad u cabiran doontaa ama confirmation ahaan saas aad iyo aad runtii kugu caawin doontaa
هذا ماشان أمر كلا وفيرسو هذا تنو كلا إني 4 hour pullback تهيئ إن كلام حنك كلا جرانيا ماشان وكلا هاي هاي لوجنا عبرتي محن ku garanayay waxaan ku garanayay iyada ay cabir marka iyada say ugu cabirto oo boqoliyo saaid dib marka way ii tahay pullback mar haddii iyada la soo jibiyay uptrend 4 hours oo kala wareegay tan yar dhexe ku jirta balaageedu waxaad leedahay haddii ay structure-keedu jibin lahaa waa 4 hour pullback sababtoo waa 70 saaid saad u cabiranaysaa saasay noqon doontaa oo waxay kaa caawinaysaa marka meelaha haddii mugdi kaa galo ama madmadow kaa galo waxay kaa caawinaysaa inaad kala garan kartid meeshaan ma odhan karaa waa pullback mise ma odhan karo 50 minutes haddaad iyada joogto ka warran haddaad 50 minutes ka joogto simberi waa intii la mida un 13 bib iyo wax ka badan haddaad haysato meeshaasi waxay kuu noqon doontaa okay sorry ma ogola meel dambeenu joognaa in halkaa laga jaro marka halkiisan baa nimaadno meel dambe markaad joogto lower time frame ma ogola in la jaraan filayaa okay hadda meeshan kale haddaan joogo 15 minutes halkan iyo cabir meelahan soo samaystay qaar kamid ah cabir kuwan soo samaystay هذا ماشان كان already هذا صار كلا واحد دير تيابا مركنا كلا وشيلة تنبيب شيلة تنا كلا واحد 16 بيب 16 كابيب وبولباك ماشي اسمحي كواي وبولباك مالين كميش هذا اللي تشبيه وحكى عيد شوك بعد شوك إيه قاسم حلو شقين واي وسؤال ماشي كتيرته أو مركز أي قالنا إنه كتير بدون لكن هذا 15 من هذه كوت هاي بولباك أما 16 بيب يحكي بدل هذا هيسته واحد ماشى كو هيسته واحد الله يقانو structure kaagaas waa la jabiyay ama 15 minutes ka marka aad joogto waxaad isticmaalaysaa 13 bib iyo wax la mid ah oo isticmaalaysaa okay intaas ayaan insha Allah aan doonayaa inaynu insha Allah qaybteena hore ku eegno waxaynoo haray oo insha Allah isla xiisadeena insha Allah in ku eegi doonaa qodobka loo yaqaano intii hadda aynu ka soo hadalnay oo complicated ama multi time frameska ah aynu insha Allah eegi doonaa marka link kalena insha Allah idin soo diri doonaa kaas insha Allah soo gali doontaan kaas insha Allah ku eegi doonaa qaybteena dambe insha Allah